بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته geedigiidu wahanashadii gobonimada iyo dawladnimada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu soo maray marxalado badan oo kala duwan kuwa Soomaaliland buu waji lahaa halgan hagarbax iyo dhabar adeeg loo dhamaa oo inba meel kaga beegneed ayaa qarankan maanta 30 jirsaday loo soo huray waxa intaasiba ka weyneed ahaydna suurtageliyaha dadaaladaasi oo dhan taban taabintii iyo taageeradii alla inoogu naxariistay in aynu shacbi ahaan helno aragtidii iyo hirgelintii ku aadanayd in dib loo hanto qarannimadii dawladnimadii 60kii habowday la dhiso nabad bar ilaa galbeed lagu nagaado isla markaana la yagleelo dawlad kala dambeyn xeer iyo xasaanad dalimo buuxda 2005 ayay ahayd markii aynu dooranay golaheena wakiil ee ugu horeeyay ee ku yimaado hab doorasho oo toos ah oo ku salaysan nidaamka xisaabta badan iyo codbixinta tooska ah ee dimuqraadiga hadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u diyaar garoobaysaa sidii loo qaban lahaa doorashadii labaad ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee saddexaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato anigoo ogsoon in golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland lafdhabar u yahay hanaanka dawladnimo ee dheelitiran isla markaana si fiican u fahamsan culayska waajibaadka looga baahan yahay inuu guto xildhibaanka golahaasi ka mid noqonaya sidoo kalena aanay ila sahlanayn miisaanka mas'uuliyadu ka leedahay Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa oo isagu inoo sugay xeerka ah in gudashada mas'uuliyad kasta leedahay sawaabkeeda gudasho la'aanteeduna leedahay ciqaab feed iyo mid aakhiraba waxa aan rogrogid falanqayn ka tashi iyo la tashi iyo ka fiirsasho dabadeed aan anigoo Allah subhanahu wa ta'ala kaashanay istusay in aan qarankayga iyo dadkiisa xurmada badan u adeego uguna hawlgalo xildhibaan golo wakiilad si taasi u suurtoodana ay noqotay inaan isu soo sharaxo murashaxa golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex runtii riyo kasta inay rumowda waa arrin ugu horeyn ka dhabowda qadarka iyo awoodda Alle taasi oo ah wax aadamaha ka baxsan balse rajaynteedu tahay mid inagu waajiba waayo filashada adoonku waa wax tixgelinta Alle mudan sida diinteena suuban inoo tilmaamtay sidoo kale waxa iyaduna muhiim ah hamiga halganka hawlqabadka iyo hurida dadaal kasta oo awoodi saamaxdo sidaasaan maanta u jeclaystay in aan dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan codbixiyaasha gobolka Maroodijeex ugu cadeeyo himilada aan rabo inaan ugu hawlgalo si kastaba ha ahaatee anigoo ah muwaadin reer Soomaaliland ah ku dhashay ku dhaqmay ku dhaqday oo ku dhalay Jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo barkii 1991 dib loo hantay qarannimadii waxa aan ka leeyahay murashaxnimadayda oo aan rabaa inaan dalkayga iyo dadkiisa ugu adeego qabyatirka hal abuurka tayada iyo wax ku oolka xeerarka dalkeena kaasoo lama huraan u ah taabagelinta dawladnimo ee dalkeena dheelitirka waaxda fulinta iyo dhab uga turjumida la xisaabtanka hay'adaha kala gedisan ee xukuumadeed iyo dawladeed ka turjumida matalaada iyo dhab uga adeega dadweynaha aan matalo gaar ahaan iyo guud ahaan dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyagu Allah subhanahu wa ta'ala isukadii mulkiilayaasha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan ku baadi soocmi doonaa taariikhduna iga marakici doontaa haddii alla igu guuleeyo halka aan u socdo ka dhabaynta qodobada saddexda ah oo aan ila sinaan doonin wax kale balse aan iyaga ku taagnaan doono ku tabci doono kuna talagalayo in aan muddada aan dooranahay ku faracdaygo fulintooda ma raba in aan fadhiyada golaha wakiilada si aan macno lahayn xil kastimo lahayn u soo xaadiro oo aan wixii hadba miiska la keeno falanqayntooda ka fuul yeelo malahayga iyo maankayga sida ay tusiyeen balse waxa igu ballan ah inaan dadweynaha gobolka Maroodijeex oonan kala soocin dhab u matalo xafiis shaqeeyo oo adeegooda u furan ku dhex lahaado uuna noqdo muraayad ay ka arkaan danahooda dadnimadooda dulucdooda iyo doodooda waxaan rajaynayaa oo rabaa inaan noqdo mudane insha Allah intii jilicsanay bulsho inta mudan ee leh naafo waayeel halgamayaal hablo bulsho la haybsooco codkoodu aanu lahayn matalaada miiska golaha wakiilada geysa
oo hubisa in la tixgeliyay lana dhageystay codkoodii. ma rabo inaan xildhibaan iska ahaado iyada oo xeerarka wadanka loo dejinaya aanay ka turjumayn baahiyaha dhabta ah ee dadka reer Somaliland. ma dhici doonto oo aniga igama suurtoobi doonto in aan u codeeyo ama ka codeeyo ama ku codeeyo wax aan ahayn daacadnimo dal iyo diin jacayl. taas aan soo sheegay ee sida dhayda u cad waxa aan isleeyahay oo ku kalsoonahay in aan Allah subhanahu wa ta'ala dartii iyo jacaylka dadkayga aan ku heli doono. taasina ay noqon doonto maxsuul aan ka dhaxlo tabca u adeega bulshada. waxa iga ah in aan intaasi igu filnaan doonto caawilnaq iyo mushqaayad aan iimaansado igu filnaan doonta igana reebta dhaxal iyo dhigaal ay anfacsadaan ubadkooda anna aan dheefsado oon iga dhamaanin godka weyn ee maalinta qiyaame iyo nolosha dambe ee aakhiro oo ah 3 adduunyo oo harsan. walaalayaal waxaan ku soo gunaanadaya hadalkayga iyo hore oo isiya cod aan ku janno tago oo aan ugu jahannamo tagin. macnaheeduna waa cod iyo ducaa isugu heedara si aan idinku adeego idinkuna hagar baxo. اللهم هدله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Somaliland ha noolaato.